akhyaarta soo dhawaada burkii aadka la iiga soo codsaday oo bandhiga markii aan ka qayb galay jidka lagu gadaayoon gadanay aan cunay dadka isoo weydiiyeen waayo burka maanta aan samayn doono qasidiisa muhiim ah soo waxaan halkaas ku shubay 2 qaad oo qamiir ah yeastiga kay dhahaan 2 koob oo biyo ah sokor 3 qaad camal cusbo yar markaas kadibna 3 koob oo bur ah marka aniga burka aan qasaayo waxaan sameeyaa wax jilcinayo camal intaan ka dhigo aan hadhowna koobka afraad gadaal uga dari doonaa maxaa yeelay waxaan nacbahay qasidiisa haddii kale taa xoog badan ay u baahan tahay iyo waqti badan marka hore haddaa si fiican u qasto oo marka hore intaa jilciso burka tartiib aa ugu darsato waa kuu fududaanaysaa hawsha especially haddii aad tahay qof wax kariska iyo waxyaabahaas ku cusub jikada habkan aan u qaso waa hab maaragtay aad u fudud oo dadka wax kariska ku cusub maaragtay aad u caawin kara insha allah marka maanta waa ka wahsaday inaan mashiinkii ku shubo inaan idin tusaan rabay marka gacantiina ku qasan kartaa wakaasaas u fudud yahay waa ujeedaa horu iska dhexgalay waqti dhan igama qaadanin marka hadda waxaan sameynayaa waa inaan adkeeyaa xoogaa yaraan adkeynaa hadda bur yaraan ku daraa waa koobkii afraad koobkaas hadda wax yaraan ku darayaa maasha allah burkaan feesto magaaladeena lagu sameeyo oo cuntooyinka adduunka dhan lagu soo bandhigo aan tagnaan samar kasta burkaana lagu gadaa Romanian buray dhahaan oo maaragtay flat bread marka sokor yar hadhow korka uga shubaysaa maasha allah waxaan ku leeyahay safka loogu jiro burkaas waa yaabaysaa Romanianka samaystaan magaaladeena waxyaabaha cuntadooda ay soo bandhigaan ay ka mid tahay marka sida loo qasaaya muhiima dabcan Soomaali burar badan waa samaysanaa kala nooca laakiin kan sida loo qasaaya hadday kuu toosto maasha allah markaa fidinaysidna si fiican u qafiifiso saliid yar aan ku daray maxaa yeelay faraha inay maaragtay waxaan rabaa iiga foqfoqdo birtaana ay maaragtay ku dhegin maxaa yeelay meelaa dhigaysaa waa inay soo furtaa oo saacadaa sugaysaa meesha guriga ugu qandacsan dhig jikada agteeda markaas kadibna way soo fuuraysaa insha allah markaas kadib aad samayn doontaa marka si fiican isku dhexgeli mashiin haddaa haysata is the best laakiin gacantana saasaa ugu samaysan kartaa waa daboolaya markaan daboolana waxaan sugayaa ilaa iyo saacad waa kaasaa wuu soo fuuray waa ujeedaan diyaar waay bur yaraa meesha marsanaysaa aad u yar burka ha ka badinin maxaa yeelay saliidda waa kaa madoobaanaysaa burka haddii aad ka badiso marka aad wax fidinaysid ama sabaayad ha noqoto ama burkaan ha noqoto bur mariska badan maaragtay saliidda kaa madoobaanaysa markiiba waa kala jarjaratay sida u fudud yaa waa ujeedaan sida u jilicsan yahay yacni oo iigama baahno xoog badan hadhow iyo xataa maaragtay qoryaha wax lagu fidiyo intaan soo qaato inaan ku fidiyo iigama baahno gacantaan maaragtay ku fidfidinaya waa isku dhammaatay ilmahana maasha allah waa jecel yihiin safaa loogu jiray intii maaragtay aan dhammaynayo waa la sugi weysanaa waa la kala dafay war biliis waxaan ka duubanayaa ha qaadanin aan ku hayo yurtan ku hayo marka haddaba kaasaa ilmaha waa jecel yihiin alaabtaan marmar casriye ah loogu tuuro weekendiyada maaragtay guriga markii la joogo galabtii iskoolada markay xiran yihiin waxaa soo dhow waqtiyadii insha allah hadda iskoolka la furo laakiinse fasaxyaa iska soo dhow waqtiyadaasoo kale saliidda marka asxaabta oo wax kariska ku cusub saliidda baroobee haddii burkaa wax yaroo buraa goynay waa ku ride saas waa inuu kor usoo kacaa hadduu hore ka madoobaada burkaas daadmiina saliiddaada waa kaa karkartay waxna kuma karin kartid waa inaad dabka damisid waa inaad sugtid marka saliidda bur yar ku rid burka kor hore uu soo aadayaa buf uu soo dhahaa haddii ay saliidda maaragtay temperature fiican ay kuu tahay haddii kaleetana waa kaa gubanaysaa maaragtay burki waa kaa gubanaya marka waa inuusan burkii hore uusan ka gaduudanin hadduu hore ka gaduudo daadmiinis dhexdii waa caddahay weli dhexdii yacni waa cayriin weli marka waa inuu burka tartiib u karaa saasoo kale u gaduutaa qaadadaasoo kale u baahan tahay aaday muhiim u tahay burka hadduu inuusan kaa gubanin uusan kaa gaduudanin saliidda inay ay qiyaas fiican kuu tahay marka bur yar ku dhex rid waa dhammaatay gacantaana saas ugu fidinaysaa sidii horeba aan idinku sheegay xabad kasta markii aad fidisid waa inaa hore saliidda uga ridaa haddii kaleeto meesha haddaa dhigto waxaa laga yaabaa inay meesha kaaga dhegto wax lamid ah marka si fiican u ballaari aniga birta aan haysta intaasay la eg tahay maanta sooma sii weynayn karo laakiin haddaa birar waaweyn aa qabtaan oo maaragta wax lagu shiili karo si fiican gacanta ugu ballaari damoor aad maaragtay ballaariso khafiif markuu noqdo uu kasii crunchy yahay qajajac uu noqonayaa maasha allah kasii macaan yahay marka si fiican gacanta ugu ballaari haddii aa haysato birtayda ka weyn aniga intaasa iigu weyn oo samayn karay wakaasaa saliidda ha iska karkarinina dabka dambena saarta saliidda qatarteeda iska badan especially haddii guriga ilmo joogaan dabka dambe inaa shidaan aaday muhiim u tahay marka wakaasaa sokortan waxaa waaye sokortii shiidnayd oo caddayd waaye burka camal ahayd intaasaa ku qurxinaysaa hadaaye sokor badan kuma qasin waa ogeydeen 3 qaad camal aan ku qasayo cusbo yar marka sokortaana maasha allah macaan ka dhigayso wixii dhammaa maaragtay
khatar ka dhigaysa marka insha allah sokortaas korka uga shuba waa wax qurxoon ilmahana waa jecel yihiin hadda waa idinkaasa waxaa waaye dad badan ay soo weydiiyey marka ka xumaa inaan la soo daahay laakiin waa kasoo shaqaynaya wax badan waxyaabo kaleetana waa sameynaya marka daas waa u mashquula waxay tale tusaale hoos ku reeba insha allah sheer garaya gabdhii dhahay wax ilmaha lagu korsado ciyaalada teenage-ka ade wakaasaa ee ka dharjiya burkaas yaa qaraabo khayr iyo barako insha allah cajalada sheer garaya si walaalo kaleeto u arkaan meelaha ay igala soo xiriiri kartaan wakaasaa snapchat-kayga waa xafsa cooking iyo facebooka instagram meelahaas dhan baa igala soo xiriiri kartaan khayr badan baa idin rajeynayaa wassalaamu calaykum share subscribe